aan ku bilaaba magaalada muqdisho oo caawa uu cirka isku shareeray khilaafka ba'an ee ka dhex aloosnaa baarlamaanka oo dhexdiisa ishaya iyo xukuumadda kadib markii gudoomiyaha baarlamaanka federaalka maxamed sheekh cusmaan jawaari uu warbaahinta caawa la hadlay eed kulul ayuu dusha u saaray xukuumadda wuxuu raaciyey caawa ciidamo aan ahayn kuwii ilaalin jiray baarlamaanka oo u tababarnaa in ay kala wareegeen ilaaladii iyo hawshii baarlamaanka ay ka qaban jireenba wax uu ku tilmaamay ciidamo ay soo dirtay dowladda hadaladii jawaari uu saxaafadda siiyey iyo khudbadiisii waxaa dhegaystay mawlid xaaji cabdi oo hadda stuudiyaha ila fadhiya oo noo sharaxaya mawlid cabdinuilaa maanta waxaa jirtay in magaalada muqdisho ay ka jireen kulamo iyo weliba guux dhinaca siyaasadda ah waxaa jiray xildhibaanada taageersan gudoomiyaha baarlamaanka mr jawaari in ay ku shireen xarunta ama hoyga la yidhaahdo villa hargeysa iyadoo halkaasna saxaafadda inta badan lagala hadlay oo ay u soo bandhigeen mowqifkooda xildhibaano kala duwan oo ra'yi ahaan taageersanaa gudoomiyaha baarlamaanka islamarkaasna si weyn uga soo horjeeday mooshinka waxaa jirtay iyaduna in ay dhinaca kale jireen kulamo gaargaara iyo weliba guux dhinaca siyaasadda ah arrimahaasi oo dhan oo socda ayaa waxaa jirtay in gudoomiyaha baarlamaanka uu shir jaraa'id qabtay goor dambe oo galabta ah isagoo tilmaamay in uu jiro iskuday lagu doonayo in baarlamaanka meesha looga saaro sida hadalka uu dhigay maxamed cusmaan jawaari waxaa kale oo uu tibaaxay in ay socoto in asaga farta lagu fiiqayo laakiin waxa uu digniin ku bixiyey in aysan ahayn isaga oo keliya cidda arrintani ay galaafanayso waxa uu xildhibaanada u jeediyey in looga baahan yahay isku duubni sida hadalku u dhigay loona baahan yahay in baarlamaanka la badbaadiyo arrimahaasi oo ka hadlaya gudoomiyaha baarlamaanka waxa uu yidhi waxaase hadda dhacday oo aan aad iyo aad uga xumahay in lagu kaco in baarlamaankii golihii shacbiga oo ah laantii sharci dejiska oo dejinta ee soomaaliya oo ka madax bannaan dhammaan laamaha kale in lagu soo ay xukuumaddii ama laantii fulinta ay weerar ku soo qaaday oo ay mooshidadan ayada ay daba joogto oo haddii alkuuro ay ujeeddadana ay tahay in baarlamaankaasi uusan noqonin mid shaqeeya waxaana sababay arrimo aniga aan diiday inaan saxiixo oo ka hor imanayay nidaamka mabda'a iyo ammaanada naloo dhiibay in aan saxiixo aan ka diiday ayaa soo kiciyay arrinta tani ujeeddada ma aha jawaari meesha laga leexiyay waa ujeeddada waxaa loo jeedaa waa burburin lagu wado golaha shacabka dhammaan xildhibaanada golaha shacabka kuwa mooshinka keenay iyo kuwa aan keenin dhammaan waxaan ku baraarujinayaa min fadlakum ixsaanakum jawaari waa qof berituu ka tegi karaa anigana ma ihi qof kursiga isku dejinahay qof kursiga maartaa awoodda ku dhegdhegaayo ma ihi laygumana soo barbaarin laakiin waxaan walaalayaalo kulligiin idinka codsanayaa min fadlakum ixsaanakum xildhibaanadiina saa u dhantihiin burburka ha laga ilaasho golahan shacbiga idin dhiibtay ammaanu idinku yahay kitaab baad u soo marteen ujeeddada la rabo in baarlamaanka lagu burburiyo ha la ilaaliyo xildhibaano baarlamaankaaga badbaadso mawlid marka aad eegto qaabkii siyaasiyiintu ay hadli jireen korka xaadiska ahaa kama muuqanin hadallada jawaari eedihii uu dusha u saaray xukuumaddana wixii cawaaqib ka yimaadaan uu mas-uul kama yahay ayuu yidhi cabdinuur waa sax wey inta badan laguma aqoon jawaari markuu hadlayo ama masraxa siyaasadda inuu hadallo inta badan cadcad uu soo jeediyo laakiin hadda waxaa moodaa xitaa shucuurtiisa markaa si fiican u fiiriso inay ku jirtay inuu shucuur ahaan aad iyo aad u kacsanaa baad moodaa waxaad kaloo moodaa in waxyaalo badanna mararka qaarkood uu doonayay inuusan ama daah uu saaro uu doonayay sida marka uu leeyahay waxaan diiday inaan wax saxiixo ammaanada naloo dhiibtay arrintaasi ma aanu caddayn haddaynu eegno sidoo kale hadalkiisa gudoomiyuhu waxa uu si kulul ugu dhaliilay ra-iisul wasaaraha xasan khayre in ay jirto in ciidamo u soo diray xarunta baarlamaanka sida gudoomiyuhu uu sheegay isagoo tilmaamay in ciidankii meesha joogay laga saaray bal markana aynu maqalno gudoomiyaha arrintaas ka hadlaya arrinta kale oo hadda la iisoo sheegay waxay tahay in golihii shacbiga meeshii xaruntiisii ay xukuumaddii la wareegtay ay ka qaaday dhammaan boqol iyo dheeraadkii ciidankii meesha joogay awarka siday
oo u tababarnaa difaaca baarlamaanka in laga wareejiyey ciidamo kale ka amar qaadanaya laanta fulinta in meesha la keeno dhibaatada meeshaas ka dhacdo waxaan caddaynayaa haddii wax dhibaato ah ka yimaadaan aniga iyo dhammaan markaa guddoonka iyo guddiga joogtada mas-uul kama nihin waxaa mas-uuliyaddeeda toos u qaadaya ra-iisul wasaaraha oo bixiyey amarkaasi in baarlamaanka lala wareego taa ayada ah shacbiga